وأنا حبناها قولها وسيرة أنا لما أنتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركل اسبح وناكسن مالي وناكسن انت عينا شركة فرنين waxaan doonaynaa maanta inalama joogaan marti sharaftii waa ergadii oo kaliya marka dadka xagga u dambaysa fadhiya waxaan doonaynaa inay soo dhawaadaan oo kuraasida bannaan ee xaggan hore yimaadaan waxaynu geli doonaa arrimihii xisbiga iyo doodihii iyo xeerkii waxaynu geli doonaa doorashooyinkii maanta waa maalin wanaagsan inkastoo ay wax waliba si khayr leh inoogu dhammaanayaan oo niyad samida iyo wanaagga iyo kalsoonida iyo xisbi jacaylka aynu ku joognaa ay muujinayso waxaana samaynaysaan mifadlakum hoolku wuu inagu filan yahay arrintii dardaaranka caafimaadka mar labaad waan idin xasuusinayaa haddaa fursad heshaan kuraasida kala yaro durkista ha iloobina bahalka afxidhka ah ee afka lagu xidhan yahay arrinta dardaaranka caafimaadku waa muhiim kuraasidaa faraha badan leh haddaa kala durki kartaan kala durka waxay isku daydaan inaydaan afxidhka iloobin oo mar walba afxidhka aa sidataan dadkiina isku dhadhowi intaa kadib waxaan doonaynaa maanta discipliinka shirka inaynu aad u ilaalino sida aynu u fadhino iyo nidaamka aynu ilaalino iyadoo aynu hadhowto shirku markuu furmo wixii labaad ee discipliinka habsami socodka shirka aynu isu sheegi doono imikaste inta aynaan shirka furanin waxaynu u sara kici doonaa heestii calanka Islánimo
aad iyo aad baa u mahadsantihiin barnaamijka ama hawsha aynu maanta qabanayno qof wal oo halkan ergeyda ka mid ahi wuxuu ku hayaa qoraalkii gacanta ayuu ku hayaa waxaad haysataa laba qoraal oo mid uu yahay jadwalka aynu ku shaqaynayno iyo sida ay u kala horeeyaan ka kalena uu yahay xeerka aynu iminka gudageli doonno mar dhow iyo oo sida dad fara badan waxaan doonayaa inaad fadhiisataan hawshii way noo bilaamaysaa inta aynaan markaa shirka furin waxaan doonayaa inaynu ku soo dhoweyno sheekh khaliil wasiirka awqaafta oo inoo akhriya aayadaha qur-aanka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ولا الليال آيات كان أخرسني وسورة الحشر قدام بيا إلهي سبحانه وتعالى وحكواننا يا أمة المسلمين تا إذا كمؤمنين تا كم يتكنا هاي إن إلهي كعب سنه وأين أفير سنه ما أنت يوم القيامة بريتها وحين هرمر سن لهين إلهي سبحانه وتعالى وله حليه dad yow muuminiintii alla ka cabsada oo ka fikira oo qof waliba waana hoos u eegaa wuxuu berito hormarsaday ee camal saalixa wuxuu ka dhigay ilaahay yowmal qiyaamaha berito ayuu ilaahay ka dhigay si wax beriyo dhow ilaahay nooga dhigay inna allaha khabiirun bima ta'maluun ilaahayna uu ka warhayaa waxa samaynaysaan iyo camalkiina walaa takunu hanqanina kalladina nasullaha fa ansaahum anfusahum أولئك هم الفاسقون هكمل نقولنا كوا يجو إلهي سبحانه وتعالى إلا وي أمر كيسي كتجي أدي ذي أيلوا كواس نقولنا فأنساهم أنفسهم إلهي نحكوا عقابي إنه نفتو دي دنتو دي جرسين واي سبحانه وتعالى مركا إلهي إلى لأنه دنتين يتلدين إلهي نوتوسين يون جرسين يا كواس كوا عن كايله فاسقون وكوا فاسقين تعه أمرك إلهي أن قادنين كبحي كدحبحي إلهي أمر كيسي إلهي حليه مسنا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون مسنا كو نار أو صاحب نار صاحب النقضي يكو جنة قلية كو جنة قلية اللي بان
oo barwaaqooba fawzay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu markaa ina xasuusinaya jamaadka iyo waxaan aan noolaha ahayn buuraha kale ah inay dareen leeyihiin ilaahay wuxuu sheegtaa aayaddan akhrina waxa ka mid ahay inuu ilaahay yidhi ammaanada waxaan u bandhigay samooyinka iyo arlada ayaan u bandhigay markaasay ka baqeen markaasay qaadi kari mayno xilkaa gudan kari mayno xilka ilaahay alla ka cabsiga gudan kari mayno xilka yani amarkaa ilaahay aanu fulino gudan kari mayno awood ma lihin laakiin aadamaa qaatay waa xamalaha alinsaanu innahu kaana daluuman jahuula jaahilnimo iyo dulmi baa ka keentay inuu caynkaa yeelo insaankii baa qaatay halkan maanta aayaddan ilahay wuxuu ku leeyahay low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabal haddaan ku soo dejin lahayn qur-aankan iyo kitaabkan qur-aanka ah buur haddaan ku soo dejin lahaa iyagoo maan uguma talageline laakiin dadkan ugu talagalay haddaan buur ku soo dejin lahaa lara'ayta buurtii khaashican mutasaddican min khashyati illah buurtii oo cabsanaysa oo ilaahay u khushuucsan oo dildilaacaysa cabsi ilaahay dartii u dildilaacaysa buurihii baa dildilaacaya qowlkan kariimka ilaahay ayay ka baqayaan rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay isagoo inooga warramaya naftiisa inuu na baro iyo magaciisa wanaagsan huwa allahu alladii laa ilaaha illaa huwa caalimu alghaybi waashahaada ilaahay subxaana wa tacaala allaha weeye aan ilaah kale xaq lagu caabuday jir isaga mooyaane caalimu alghaybi waashahaada ilaaha ka warhaya waxa muuqday waxaan muuqan ilaaha ka warhaya huwa arraxmaanu arraxiim isagaa naxariis badan oo muuminiinta adduunka ugu naxariista aakhirana si gaara muuminiinta ugu naxariista adduunyada naxariistu way ballaaratay wasicat kulla shay ilaahay naxariistiisu wax kasta way kaafisay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay magacyadaasaan leeyahay haddana wuu ku celiyey huwa allahu ilaaha xaq lagu caabudaa alladii ka weeye laa ilaaha illaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa aanu jirin isaga mooyaane almaliku alquduus ilaahka ah ee wax walba hantiyey ee mulkiyey alquduus ilaaha subxana wa taala ka hufan xumo oo dhan ka hufan ee muqadaska ah ee la dhowro ee la ilaaliyo ee aan ceeb iyo nuqsaantoona lahayn السلام إله النبتجلية يسقوا صاحبه أمة النبتجلية ما يعيشون السلام نبتجلية ويتهاي يسقون ذاك النبتجلية ذاك النبت يونا يخير وجوجا المهيمن إله أمر كيسو وكفله وحولبا وكسر ريا العزيز إله غالب كحوجين وحولبا كحوجين الجبار إله كدرق يعد والبأمر كيسو كدرقية قصب كقدر فليان المتكبر إلهي يسوي وين أنت وصاحب كيس ويني كبر كوجار كل هي إلهي سبحانه وتعالى سبحان الله عما يشركون إلهي بكوفا وحلا وحيرا عنا يعني مقعي خلدن يعد يسير أيام إلهي بس سبحانه وتعالى كوفا وقدام بينتي إلهي سبحانه وتعالى وحليه الله الخالق هو الله الخالق إلهي أبوري المصور الباري إلهي إذن بالبادي إذن أبوري إلا إذا كان أبوري المصور إلهي إذن صورة دولة سنين سميي له الأسماء الحسنى مقعيون أساس كي شيء يسبح له ما في السماوات والأرض عد وحكا استاجودك نول أم نولها النقض أم بها النقض وحنا نولين إلهي سبحانه الله سنين لكن ما فهمينه تسبيح ذوده إلهي قد ما يتحول هو العزيز الحكيم إلهي يسقو غالب كحكمة وصاحبه ربي سبحانه تكبقى ومقعيسا قرح ضبان كبريا وإلهي كبريا مقعيسا قاعد قرح ضبان كبر إلهي نقا قبل عمك هاي ونكسن إله الدنيا تونا نقداف إله تلا نوتوسي إله ومده كان كذا نوفوه يا رب العالمين إله وحنا ودي سنينا إنه إله شركة نبضي نوجود ما يستره إنه إله شركة نبضي نوجوده إنه إله سبحانه تسكن في جنسيه إنه إله سبحانه تعالى أوده خير كإله النسي ومنطق نموتيه إله وحنا كبرنا سبحانه تعالى ضل خير ضدكم بإله نبرواقه يكرامه إله وصيه وحلا وحنا باهنا هاي اعترف كوه الرينا إنه إله سبحانه تعالى قعمين إله سوق ليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا إلهي نوع فعو حديث كاي هذا قرآن كريم كاي تفسير كابا هاتن وحينو قلتونا إنو شركو ينوفرمو ما أنتنا وحا هايستان وقعنتي نكو هايستان لبدا قرآن عن هرو شيغي mid waa jadwalka aynu ku shaqayn doono oo mid walba ay ku qoran tahay waqtiga uu soconayo iyo sida uu soconayo mid kalena waa ka xeerka oo muhiim inoo ah gudoomiyaha shirgudoonka Cabdikariin
oo ka mid ah dadkii may maqlaysaan miya dadkii codka waad maqlaysaa maxaa ka cabanaysaa markaa shalay baa lagu siiyey kuwa kugu xiga la akhriso waxaa meesha ku jirta qodobaha xeerkaasi waad soo akhrideen xalayto waxaan hubaa in sida inta dhowrka qodob ee wax laga beddelay wax ka beddelkiisu aanu sidaaba u ahayn wax aynu wakhti badan iyo saacado badan iskaga luminno ama dood adagiba ay ka iman karto waan ku kalsoonahay cabdikariin oo ka mid ah 18 sannadoodba xisbiga xeerkiisa dadka faraha badan ee gacanta ku hayay ee wax ka qorayay ayaa inoo daadihin doona laakiin waxaan doonayaa inaan idiin sheego nidaamka ay doodda u soconayso oo keliya waxaynu ilaalinaynaa wakhtiga waxaynu ilaalinaynaa ta aynu ilaa shalay ku ammaananahay oo ah disibliinka waa inaanu kackacu jirin ee la fadhiyaa buuq uma baahnin waxaynu u baahannahay wax aad xaq u leedahay oo ah marka doodda la furo inaad gacanta taagto oo dabadeetana codka lagu siiyo wakhtiga lagu siiyey ee aad dooddaada ku sheegaysaa kama badna 2 minit waxa aad ka hadli tusaano waxa lagu fasaxay oo qura wax ka baxsanna ka hadline waxa markaa laga hadlayo oo kaliya ka hadal waxaan idiin sheegaynaa sida uu ku dardaarmay gudoomiyuhu aan ku shaqaynayno xeerka xisbiguna yahay waxa weeye sidii halkan aynu ku go'aamino ayuu noqonayaa xeerka rasmiga ah ee xisbigu marka inagoo degan oo aan madaxeena tashuush ku jirin ayaynu gelaynaa barnaamijkeena waqtiguna inoo ilaaliya waa qaali هيا عبد الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وسلم waxaan jeclaan lahaa socodka madasha dhexdeeda in la yareeyo hadalkana la yareeyo waxaynu maanta gelaynaa waxyaalihii ugu xasaasisanaa baynu geli doonaa jadwalka waxbaa ka yara khaldan oo dadku wada dareemaya marka habka wax u socdaan baynu ku sixi doonaa hadii ilaahay ka dhigo waxaanu laydin qaybiyey qodobo xeerka ka mid ah wax ka bedel lagu sameeyey sida uu sheegay cabdilaahi daahir hadalkaanu idin siin doonaa waxaanu jecel lahay qodob laga hadlay cidda ka hadli doontaa inay isagu seken garayso ee wax cusub aynu ka hadalno waxaanu jecel lahay doodda wakhtigeedu inaanay badan oo qofku wakhti dheer aanu hadlin nuxurkiisa oo la fahmayo uun inuu yidhaahdo qodobkaasay ila tahay in sidaa loo bedelo ama qodobkaa in sidaa laga dhigo markaa hadalkaanu idin siin doonaa haddii ilaahay ka dhigo gacantaa la taagayaa waxaan u siin doonaa qofof baanu idin siin doonaa hadalkuna iyo inagu badanin insha allah شعيب عمر شعيب ورسيه دكو هيسي ما يقرب حاجه شيء غير ده حاجه على السلتاجه بخلاص السلتاجه صف والبميد السلتاجه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد waxaan salaamayaa shirgudoonka iyo ergooyinka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye doodeedu waxay ku saabsan tahay waan akhriyay qodobada uu ka kooban yahay xeerku afka si lagu anigoo ka faa'iideysanaya janiska yare la siiyey waxaa doodeedu ay ku saabsan tahay qodobka 27aad ee golaha dhexe ee xisbiga waxaan ka hadlayaa waxa weeye golaha dhexe xisbigu markii hore waxa ahaa 280 imika waxaa laga soo dhigay waa 203 marka loo geeyo 153 xubnood oo ka imanaya gobolada 15 uu ku darayo gudoomiyuhu iyo 35 kayda waa 203 weey waxay isdheeriyeen waxa weeyaan 270 waxay doodeedu ku saabsan tahay qabaa in sidiisii hore
loo daayo sababtuna waxa weeye sababtuna waxa weeye waxaynu u baahannahay marka la doonayo in la yareeyo golaha dhexe golaha dhexe waxaa laga rabaa subscription ay bixiyaan iyo dee xisbiguba markaan waxaan qabaa in loo dhimo oo qofku lagula xisaabtamo golodhexenimadiisa wuxuu qabanayo oo sidaa uu dabeetana gobol waliba uu ku soo xuli karo hadhow lagu soo saari karo maxaa subscription bixiyey laakiin sidan aan qabaa maadaama in xusbi xaakimkii inay dadku qaarkood conflict inagu abuurmo markaa waxaan qabaa in sidiisa hore anagu lagu daayo qodobada kalena saas laag masha allah gudba waayo cumar shaciib aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed xuseen muwaadinka بسم الله الرحمن الرحيم شروينها وان سلامة يا كنتي قبضنا وان بوجادين هوشة سوق بتين لبق قلب أوفر سماهان عن شايل هاينا وحكاية هذا بدوحة ويا قلب كستة حد اللواتنات كترستا وحكوت على بوجا أفراد حكاية جودة حسبك waxaa magacaabistiisa iyo qaadistiisa leh gudoomiyaha xisbiga waxaana ansixinayaa golaha dhexe joogsi intaas sideedan ku raacsanahay ha yeeshee inta ka dambaysa oo odhanaysa sidoo kale waxaa xilka qaadistiisa iyo soo jeedin karaa 1/3 golaha dhexa ee xisbiga waxaana ogolaanaya kala badh arrintaasu farsamo ahaan waxay la muuqataa inaanay qumanayn waayo xilka qaadista iyo magacaabistu way caddahay waxay ka dhigan tahay tan oo kale haddii aan idhaahno xilalka madaxweynuhu magacaabo ee golaha wakiiladu ansixiyo golaha wakiilada xilka ka qaadi kara farsamo ahaan golaha dhexe wuxuu xil ka qaadi karaa ciddii uu dhexdiisa ka doorto sida gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha markaa farsamo ahaan taas way ila qaldan tahay qodobka labaad ee farsamo ahaan isagana aan jecelahay inaan saxo waxa weeyaan guddiga fulinta waxaa lagu sheegay halkan ama xeerkii hore ku qorayd inuu yeelanayo 11 xog haye qaab dhismeedkaasi wuxuu eegayahay qaab dhismeedka xisbiyada mucaaradka ah innaga xogayaha difaaca iyo ka hawada iyo ka arrimaha dibadda iyo arrimahaas oo dhan waxaa inoo haya golaha wasiirada waa xisbi xaakim sidaa awgeed waxaan ku soo koobi lahaa 11 ka xog haye 11 ka xog haye in laga soo reebo xogayaha arrimaha dhalinyarada xogayaha arrimaha haweenka xogayaha abaabulka iyo xogayaha dhaqaalaha afartaas oo kaliya lagu soo koobay xogayaasha assalaamu calaykum waayahay waa idin siin doonaa qodobka dambe ayaan doonaya in yar inaan yara saxo dee waa nin in badan xildhibaanada kusoo jiro qarshashaasun buu inugu noqdo waa runtii wax dee macno lena uu soo jeediyey qodobka guddida fulinta sida loo bedelay waxay ku qoran tahay xilalka guddida fulinta 11 xogay meesha waa laga saaray xilalka kuma jiraan waxa loo bedelay xilalka waxa loo magacaabaya hadba sida duruuftu ay keento 11 xogay markaa meesha kuma jiraan xilalku 11 xil meesha kuma jiraan waana filaya qoraalka dhinaca kale inay ku qoran tahay ninka calanka taagay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلامتهن قدوميها يا قديدن قبنقابدا waxaan jeclahay in aan anna ra'yi aan xoojiyo si farsamaysan iyo si sharciyeysanba qodobkii ahaa tirada xogay central committee-ga ama golaha dhexe xisbiga waxa ku qoran 153 baynu ka dhignay waynu ka kacnay tiradii hore ee ahayd 200 dheeraadka waxaan adkeynayaa anoo si farsamaysan iyo si sharciyeysanba u eegaya in aynu tirada u dayno tiradii ay ahaan jirtay golaha dhexe ee xisbigu
uu ku caanamaalay sanadadii hore la tegay ku guulaystay annagoo u riisan garaynaya sida tan number one waxaan ognahay golaha dhexe ee xisbigu ee halkan aynu ku dooranaynaa inuu yahay golaha ugu muhiimsan ee ugu khayrka badan ee ugu sharafta badan for the next 5 years ee xisbiga talada gacanta haya ku hayn doona hadduu eebbe subxaana wa tacaala ka dhigo anoo eegaya oo u eegaya in siyaasadda guud ee xisbigu ay tahay in uu xisbigu noqdo muraayad la iska wada arko oo degaamada dalka Somaliland oo dhan ay iska daawadaan sida aynu ku caanamaalayno hore ugu gudbino ka mid tahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad gudoomiye ku-xigeenka labaad gudoomiye ku-xigeenka saddexaad gudoomiye ku-xigeenka afraad intaaba farsamo ayaa loo sameeyay in la isku arko ay dadku isku arkaan sidoo kale ay golaha dhexe ee xisbiguna uu la mid yahay in ay beelaha iyo degaamada reer Somaliland ay iska daawadaan iska arkaan waxa uu leeyahay faa'iido fara badan maadaama aan doonno xisbiga inaynu adkayno maadaama aan doonno xisbiga inaynu tayayno maadaama aan doonno xisbigu inuu noqdo xisbi hana qaada in ay dhaqaale soo kordhin karaan tirada badan dadka la'aana membershipku waa inuu ahaada san adkaynayo jecel inaynu ugu dhaqanno membershipka qofka aynu u doorana waa inuu noqdo qof income iyo xoolo soo gelin kara xisbiga joogta ah oo monthly oo bil ah taa waxaan qabaa in uga faa'iideysan karno tikale in uga faa'iideysan karaa iyadana waxa weeye iyadoo meesha badan taariikhdeena waxaan ku guuleysanay labadii arrimood labadii gole labadii 25 sano ee uu jiray imika xisbiganima golaha dhexe golaha wuxuu ahaa golo salbalaara oo balaaran kumaynu khasaarin ma fahmin reason aynu u yareyno ma fahmin reason aynu dib ugu guranno ma fahmin reason halkaa oo kale marka waxaan oran lahaa aynu gudoomiye adkayno oo aynu tayayno xisbiga laakiin tirada waxay ka mid tahay waxyaalaha aynu ku adkaynayno waxyaalaha aynu ku tayaynayno waxyaalaha aynu ku xoojinayno numberka faraha badan ee marka waxaan soo jeedinayaa in tiradii hore ee golihii hore uu ahaa sida loo kordhiyo qodobka kale isna ku daraya gudoomiye iyadana mudan inaan ka sheego waxa jirta golaha dhexe waxa ku jiray waa ka dhantay xildhibaan ma filayaa ablaha inanta halkaa gacanta ka taagaysa inanta marada madow halkaa gacanta ka taagtay inanta istaagtay si qof waliba magaciisa ha sheego marka hore ku bilaabo bismillaahi raxmaani raxiim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamayaa madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxda qaranka dhammaan shirgudoonka iyo ergooyinka dhammaantood waan salaamayaa su-aashaydu magacaygu waa luul xasan mataan su-aashaydu waxay tahay waxaan weydiinayaa shirgudoonka xeerkani haba yaraatee dumarka uu daadifeeyey waayo darif ilaa darif waxaa tirahdeen golaha dhexe waxaa soo geliya 20 dumar ah lafdhabarta xisbiguna waa dumarka waxa weeye haddana lafdhabarta xisbiguna waa dumarka iyo dhalinyaradana 10 ayaa tirahdeen qurbo jooga 15 waxaan codsan lahayn intaas in laga kordhiyo midda kale hoggaanka sare dhammaan waa rag kuma jiraan wax dumarihi dee kuraasida idinkuunbaa iska fuur yeelay xisbigana waanu idinla leenahay waxaan doonaynaa inay dumarku soo galaan ha la caddeeyo 25 fulinta ku qoran dumarku cod inta ay ku leeyihiin inta dumara xubnoodii ku leeyihiin in la caddeeyaa baan jecelahay su-aashayda aan u dambaysan weydiinaya shirgudoonka waxa weeyaan waxa jiray xeerkan hortii doorashadii madaxweyne Muuse Biixi ku soo baxay garabyo badan ayaa ku soo biiray xisbiga kulmiye heshiisyo lala galay garabyada waxay haayeen golaha dhexe in dad lagu dari doono fulinta in lagu dari doono ma ka qayb yihiin barnaamijkan mana ku jiraan garabyadii heshiisyadii ballanqaadyadii bariga la wada galay والسلام يا شركة السلام عليكم ورحمة الله waayahay bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan jeclaan lahaa qodobka tirada ka hadlaya waa laga hadlay cid wax ka duwan haysa haddii ay jirto qodobka inaynan ku rafan qodobada kale waa laga hadli karaa markaa qodobkaa si uu isagu inooga afxidhmo dooda aanu inoogu sii dheeraan isaga cod baan gelinaya isagaynu horta imika cod gelinaynaa waayo waa inagu dheeraanaya hala soo tiriyo dadka meesha fadhiya
shaqaalaha madashu ha dhaqsado dadka ha tiriyo safafka qaybsada soo dedejiya gacanta fudaydiya safafka qaybsada si ay noogu fududaato afarta baloog ee loo kala fadhiyo lababa mid ha soo tiriso lababa mid ha soo tiriso afar qaybood baa loo kala fadhiyaa dadku haa waxaan idin arkayaa idinkoo baloog keliya wada tirinaya dhammaantiin laba u daaya laba kalena baloogga kale baloog qolada tirada wada gacanta ha fudaydiso fadlan waa dhanta soo durka
waayahay tiradii way soo dhammaatay aan isdhegaysano inta aynaan codka gelin qodobka ah luul xasan mataan laba su'aalood oo ayna weydiisay oo ah dumarka jawaabteedu waxa weeye xeerkan cusub ee wax ka beddelka iminka lagu sameeyay aad haysaan waxaa ku qoran waxay leeyihiin 20% khasab ah oo aan laga qabanaynin gobolla ilaa ay ku soo daraan dumarka waxaan filayaa tirada golaha dhexe inay konton wax ka badan inay noqon doonaan baan filayaa marka waa ogaanaysaan gobolladu markay keenayaan tirada magacyada golaha dhexe haddaan tiradii dumar ee la raaciyay aanay ku jirin inaan laga qabanaynin markhaati ka haday makaba idinku haddaanu ka qabanana kiiska nagu qaada taasi waa dumarka ururadii dadkii xisbiyada kale ka yimi ee xisbiga ku soo biiray wax ma loo qoondeeyey luuley haa golaha dhexese ma aha halkan way fadhiyaan iminka iyagoo kulmiye weynaa bay fadhiyaan rag iyo dumarba iyagoo wasiiraa bay fadhiyaan iyagoo xilal kale ka haya bay fadhiyaan iminka kulmiye weynay ka mid yihiin maaha dad gaar oo goonni wax loo siinayo taana jawaabteedu waa taa miya su'aal kale jirtay halkan waxa fadhiyaan kulmiye hayb ma kala le ururo ma kala le xisbiye ma kala le waa isku wasiiro waa isku agaasimayaal si walba waynu ugu wada jirnaa isku mid baynu nahay isku xuquuq baynu leenahay waayahay codkii baynu qaadi doonaa hala diyaar garoobo tirada gobollada ka imanaysay marka hore ee aynu codka gelinaynaa waa 241 tirada gobollada ka imanaysay aynu codka gelinaynaa waa 200 markii hore waa 240 iminkana waa 153 soo jeedintani marka waxaynu kala codaynaynaa ma sidii hore ee 241 baynu u daynaa mise 153 kaynu ka dhignaa ayaynu kala codaynaynaa cidda qabta aynu u dayno siday iminka tahay oo ah 153 gacantaa taagto waa bal soo tiriya halla aamuso min fadli halla aamuso de isku xisbi baynu isku xunba la doonayaaye ninba meel buu ka eega halla aamuso ilaa cid laga guulaysanaya ma jirtee waa isla innagii uun cidda qabta 153 soo jeedinta cusuba in loo daayo gacantaa taagto aan isdhegaysano ka kalena wuu ku xigaya ha degdegina wuu ku xigaa ka kalena tiradii baa socotaa aan intaa sugno inamada u dhaqsada tirinayo u dhaqsada
gacan dhaqsada dee intaad tirinaysaan uma badna malaaya waa dhaqsada ergada taagtaagane ha fadhiisato ergada dadka dhex maraysa ha fadhiisato qolyaha shaqaalaha fadhiisay ergada dhex maraysa cabdirasaaq dhaqsada cabdirasaaq حقيني كدير جروب حقيني كدير جروب ويا هي عدة قبطة إن لما بقول يا فرت كوب يا فرتن كي هراء قبلنا اللي جسوا حلو شري سيدو دي اللود دايو أرمانا هذا الله يبدأ يا حين تحتك دقيقة قعنت دقيقة gacanta dhiga waayahay sidaas aynu ku qaadanaynaa waa inoo nimas weeye waayahay saynu procedure-ka u dhammaystirno yaa ka aamusay ma jirto waayahay tirada aynu haynaa waa 608 ergey baa fadhiya 17 ayaa diiday ayaa oggolaaday soo jeedinta dambe sidii hore waxa u codeeyay inay ahaato 789 ergey waayahay waa saasaynu kaasi ku ansaxay waxaase jira qodobo kale calawikaadi qodobo kale oo xeerka ah oo sheegaya qof kasta oo golaha dhexe ahay inuu qadar qaadano oo bil walba laga rabo oo hadii uu bixin waayana uu xubinimada xisbiga waayay xubinimada golaha dhexe way ku tala gal kaana iska kaalaya dambe xeerka si wacan baa la isoo wada raacinaya 6 bilood qofka bixin waaya waa out ku xisaabtama si urursada imika waay waa 3 bilood sorry waa 3 bilood waa ku xisaabtamaysaan waaye kaasaasuu ku dhammaaday qodobka labaad waa qodobkii uu soo jeediyey maxamed xuseen oo ah xogayaa guud markuu ka hadlayay waxa uu qorayaa qodobku xogayaha guud ee xisbiga waxa magacaabistiisa iyo xilka qaadisiisa gudoomiyaha xisbiga waxaana ansixinaya golaha dhexe macnaha xilka qaadistiisa abisiisaba golaha dhexe ansixinaya marka qayb kale la socoto oo maxamed uu yiraahdo laga reebo isagoo dhinac sharci inoogu eegay sidoo kale xilka qaadistiisa waxa soo jeedin kara 3 meelood oo meel
xubnaha golaha dhexe ee xisbiga waxaana ogolaanaya kala badh oo mid lagu daray tirada golaha dhexe ee xisbiga yaa marka maxamed yaa fikirkaa ku taageersan loo daayo xogayaha guud ee xisbiga waxa qaadisiisa leh gudoomiyaha xisbiga waxaana ansixinaya golaha dhexe halkaa in lagu joojiyo yaa qaba gacanta taaga waayahay tiriya war tiriya kor u haya kaako halkaasaynu tiriya ما وليدي أنا قبل يتني كل وليدي تقدر قعنت هذا جنينا قعنت إن ما دوت يذكر صوب حيان قعنت واتقناتو هل كي مرت شرفت اللفتة إذا يرجع فرد بل حقنا يا إن ما ذي ما وهي هي dhalinyaradu hadda dejiso ha dhaqsato waayahay war ma ka soo baxdeen qaybta dambe ee qoraalka soo jeedinta sidoo kale waxa xilka qaadistiisa soo jeedin kara 3 meelood oo meel xubnaha golaha dhexe ee xisbiga waxaana ogolaanaya kala badh oo mid lagu daray tirada golaha dhexe ee xisbiga yaa taageeraya fikraddaas oo aan ku celiyo waxa uu qoran yahay sidoo kale waxa xilka qaadisiisa soo jeedin kara 3 meelood oo meel tirada golaha dhexe waa soo jeedin waxaana ansixinaya tirada golaha dhexe kala badh mid lagu daray taa yaa taageeraya fikradda soo jeedintaana soo tiriya
fariintii caafimaadka waanu ku celinaynaa mar kale magiciina iyo magaca shirgudoonkaba waxaanu ugu mahadnaqaynaa waa dhextaal inta tiradu socoto dhaktar carabeyte iyo xubnaha kale iyo shaqaalaha ka shaqaynaya arrinta caafimaadku waa muhiim hawsha aynu qabanayno oo dhan bay muhiim u tahay noloshay muhiim u tahay min fadlakum waa isu dhowdhowdihiin afxidhka hayloobina dhaqan baynu u leenahay inaynu had iyo jeer isku marnaanno intaan kala fogaan kartaan kala fogaada waaye madaxweynaha yidhi adiguba ma xidhnida xidho waan xidhanayaa marka waan xidhanayaa waxaan ku dardaarmaynaa inaad mar walba ilaashataan oo aad ku dadaashaan inaydan salaanta ha dhowto waa dardaaran kale marka aynu doorashooyinka gaadhno marka ay hambalyadu dhacdo marka aan hubo in dad badani madaxweynaha xaggiisa u soo dhaqaaqi doonaan waxaynu doonaynaa inay u hoggaansanaataan ciidanka ilaalada madaxtooyada u hoggaansama idinku waa jeceshin inaad madaxweynaha salaantaan isna wuu jeceliyay inuu idin salaamo ciidanka ilaaladuna waajibkooday gudanayaan markaa idinkoo kala dambayn samaynaya waxaa la doonayaa inaad fayl ahaan kuyuu gashaan oo sidaa ku salaantaan ee aynaan isgarab yaacin hawsheennii tiradaa socota halkii baynu ka wadanaynaa waayahay qodobkaan iska gebagabayno yaa ka aamusay waayahay ii kala jir waayahay waxaa soo jeedintii oggolaaday 507 waxaa diiday 48 waxaa ka aamusay 256 iyaduna saasay ku ansaxday soo jeedintii maadin baa la qaatay waaye aaniya haddaba is dhegaysano saacaddu waa 10kii qodobada xasaasiga cid waliba dareemi jira kuwaas bay ahaayeen waxay aan cod gelinayaa qodobada kale soo jeedinta intooda kale ma sidoodaynu u daynaa mise dood baynu ka furnaa qof marka cidda le sidooda ha loo daayo gacantaa taagto waa unanimous sidooda loo daayay intii kale hal qodob baan ku jirin 15 xubnood oo madaxweynaha la siiyey totally wuxuu yidhi kaydka ha lagu daro wax la siiyay jirin iyagu marka kaydkay raaceen qodobka kale ee isna way xasuusiyeen qolada hoggaanka xisbiga wax weeyaan waxa ku jira barasaabadu inay golaha dhexe xilka kaga mid noqdaan waxa soo baxay doorashooyin inay gobolada ka dhacayaan shaqaale inay yihiin marka iyagana waa laga reebay golaha dhexe barasaabadu inay toos u galaan waayahay waxaad siinaysaa safka dheer madaxda la hormar ordo la hormar uu ka dhamaaday alxamdulilaahi rabbil caalamiin xeerkii wuxuu naga dhamaaday si wanaagsan mar dhow waxaynu geli doonaa hawsheenna qaybtii kale waynu raacinaynaa
dhammaanteen waxaynu diyaar u nahay inaynu gudanno waajibkeennii xisbinimo oo sidaa aynu ta xeerka u dhammaynay ayaynu tan kalena u dhammaynaynaa laakiin maadaama aynu wakhti hore fadhiisannay waxaan soo u yeedhayaa iminkana qolada fanaaniinta sahraylays wardaada war xaggee loo kacay hawshii baa ku xigta min fadlakum marka ay dhammaato waxaynu bilaabaynaa hawshii kale birriftii lama gaadhin waynu iswada raacinaynaa maanta wakhti horeynu dabadeetana qadaynaynaa oo rawaxaynaa markay inantaasi ka baxdo waxaynu bilaabaynaa hawshii kale kulmiye magac loo hanee maamuusiyo guushaadi meel buu isu taagayo markhaata loo hayaa kulmiye magac loo hanee maamuusiyo guushaadi meel buu isu taagayo markhaata loo hayaa kulmiye indhuhu marag bay yihiin mashruucyaduna furiyo marsada berberaadka garan magaalada eeg badhow halkay maanta taagan yihiin kulmiye indhuhu marag bay yihiin mashruucyaduna furiyo marsada berberaadka garan magaalada eeg badhow halkay maanta taagan yihiin kulmiye mooye ma jiro kulmiye daraan maxasteenayo kulmiye maatida ku aamine kulmiye sawka murbaxay kulmiye mooye ma jiro kulmiye daraan maxasteenayo kulmiye maatida ku aamine kulmiye sawka murbaxay kulmiye xisbi muuqdo bulshadu ka midaysan tahay waanale waa maganale masaa loo taagan yahay kulmiye xisbi muuqdo bulshadu ka midaysan tahay waanale waa maganale masaa loo taagan yahay kulmiye وكموسيقى ترتري شروعي من المرشد شاطدا قرن مامولي مجرها نقوهجي تعلمتي ملا يسمتها هاي كلمية وكموسيقى ترتري شروعي من المرشد شاطدا قرن مامولي مجرها نقوهجي تعلمتي ملا يسمتها هاي كلمية mooye ma jiro kulmiye daraan maxasteenayo kulmiye maatida ku aamine
kulmiye sawka marbaxay kulmiye kulmiye mooye ma jiro kulmiye daraan ma xasteenayo kulmiye maatida ku aamine kulmiye sawka marbaxay kulmiye mooye ma jiro kulmiye daraan ma xasteenayo kulmiye maatida ku aamine kulmiye sawka marbaxay kulmiye waa mahadsan tahay waxaynu iminka ku jirnaa oo aynu isdhex wadnaa inaad yara nasataan iyo nusa saacihii ama birriftii oo aynu doonayno inaanu qofku dibadda u bixin shaqaalaha ayaa halkaa uu kugu keenayo wixii aad cabbaysay iyo wixii aad cunaysay labadaba hadhow toole markaa dabadeed baynu geli doonnaa hawshii kale oo aynu iyadana raacin doonnaa waxaan jecelahay intaa birrifta waddaan hawsha kale ma cusla dhinaca kale qiimaha iyo qiimaha ay inoogu fadhidaa qiimo weyna oo waa qiimihii waxay inoogu fadhidaa xisbiga hoggaankiisii inaynu mar labaad sharciyeyno ayaynu doonaynaa markaa hoggaankeenii inaynu mar labaad dooranno ayaynu doonaynaa markaa waxaa shirka nuxurkiisii iyo gebagabadiisii waa tan xeerka iyo tan doorashada waxaynu doonaynaa inaynaan u kala tegin dadka caajisaya xagga dambe fadhiyey ee dibadda u baxay waa ay maqlaysaan samaacadaha dibadda yaalla waxaan idinka codsanaynaa inaad soo xarootaan inta yaree nasashada ah kama badanayso 10 minit waa inta sharaabka laydin keenay ku dhammaysanaysaan
arrinta kale ee aan doonayay inaan idiin sheego waxa weeye sidii aad qoraalka ku arkayseen soo jeedinta dambe ama ay ahaan jirtayba xisbiga iyo dhaqan uu leeyahay waxaa jiri jiray tiro gaar ah oo guddoomiyaha xisbigu hadiya la yidhaahdo kayd buu u haynayaa ama isaga ayaa xaq u leh inuu ku daro oo uu qorqoro guddoomiyaha xisbigu wuxuu codsaday in tirada isaga laga daayo oo uu la mid noqdo xubnaha golaha dhexe ee xisbiga oo kale oo uu sidoodoo kale u dhaqmo cid tiro gaara yeelanaysaana aanay jirin arrinta kale ee uu imanka mar labaad ku celiyeyna waa arrintii khudbaddiisii shalay uu sida xoogga ah hablaha ama ugu hiilinayey oo mar labaad uu yidhi waa in la hubiyaa inuu gobol waliba tirada ku qoran meesha ee lagu amray oo haweenka ay ku leeyihiin golaha dhexe ku soo daraa haddii aanu tiradaa ku soo darin gobolkaasi liiska laga qaban maayo
bulshada isku keenayo isagaa kasbaday kalsoonida dadkee kulmiyo ugu rida dhaqaalaha kobcee kaalin qaadayo kobka horumarkuu kor u qaadayo kulmiyaynune kor u qaadayo kulmiyaynune bulshada isku keenayo isagaa kasbaday kalsoonida dadkee kulmiyo ugu rida dhaqaalaha kobcee kaalin qaadayo kobka horumarkuu kor u qaadayo kulmiyaynune kor u qaadayo kulmiyaynune lamiyada koryaho korayo ilaa xidhi kayrgalay dalkeenne kadar lagaga soo baxay kulmiyaa horsadee kulligeen kulmiyaanahe kulmiyo ugu rida kulmiyaanahe kulmiyo ugu rida kulligeen kulmiyaanahe kulmiyo ugu rida lamiyada koryaho korayo ilaa xidhi kayrgalay dalkeenne kadar lagaga soo baxay kulmiyaa horsadee kulligeen kulmiyaanahe kulmiyo ugu rida kulmiyaanahe kulmiyo ugu rida kulligeen kulmiyaanahe kulmiyo ugu rida shacbiga kaliyala kugu soo dhaweeyo adiga ku jeer muda sharaf iyo karaame kulmiyo mar kale hoo kalsoonida shacbiga hano kulmiyo mar kale hoo kalsoonida shacbiga hano kulmiyaanahe kulmiyo ugu rida kulligeen kulmiyaanahe kulmiyo ugu rida kulmiyaanahe kulmiyo ugu rida kulligeen kulmiyaanahe kulmiyo ugu rida shacbiga kaliyala kugu soo dhaweeyo adiga ku jeer muda sharaf iyo karaame kulmiyo mar kale hoo kalsoonida shacbiga hano kulmiyo mar kale hoo kalsoonida shacbiga hano kulmiyaanahe kulmiyo ugu rida kulligeen kulmiyaanahe kulmiyo ugu rida kulmiyaanahe kulmiyo ugu rida kulligeen kulmiyaanahe kulmiyo ugu rida kulmiyo ugu rida
badan dad baa u dhigo u shubay dhigo nabada dhaliye u shubay dhigo nabada dhaliye miyahan dhibiyaaran ku dhidibay caalanko markale dhalanteen ku dhiibi karaa markale dhalanteen ku dhiibi karaa dhulkeena bulshooy inaan dhisana ninkay dhibayse cilaada ka dhuruma ninkay dhibayse cilaada ka dhuruma minimo dimatu sidageye degaha ugurida inanida degaha ugurida inanida minimo dimatu sidageye degaha ugurida inanida degaha ugurida inanida matohon dhisanahay madheheliyaysiye dhankayga hadan dhaqaala helana dhankayga hadan dhaqaala helana dibaba kumala madawacmay
qolada caafimaadka dhakhaatiirtu waxay ka cabanaysaa sida ay u fadhido ergada in badan oo ka mid ah gaar ahaan kuwa inta dhexda fadhiya oo kuraasidu say isugu dhegdhegan yihiin isugu dhejiyey oo u wada fadhiya min fadlakum waxaa haysataan dhul fara badan oo idinka dambeeya oo faalal ah dhulka faalalkaa labadii kursiba kursi bannaane ha u dhaxeeyo caafimaadkiinay ku xidhan tahay waxaynu ilaalinaynaa caafimaadka dad waaweyn baa tihiin dhakhaatiirta iyo qolada caafimaadku waxay idinka codsanaysaa dad waaweyn baynu nahay inaynu qaadanno mas-uuliyadda oo aynan sidii dhallinyarada noqonin ama carruurta kala fogaada waa dardaaran qolada caafimaadku way nagu celcelisay bismi illaahi raxmaan raxiim way noo dhammaaday wakhtigii nasashadu waxaynu gelaynaa hawshii muhiimka ahayd ee doorashada guddoomiyaha iyo xubnaha kale ee hoggaanka xisbiga qof waliba ha fadhiisto dhaqdhaqaaqa ha joojiyaan ragga dhallinyarada ee xoghaynta waxaanu ka codsanaynaa in ay iyaguna diyaargaroobaan inta safka dhexe taagan ergadan taagtaagan waxaan idinka codsanaynaa inaad fadhiisataan fadhiista waxaynu gelaynaa doorashadii dadka tirada badan ee dabadda taagan ha soo galaan ergada dabadda taagan ha soo galaan codkii baa dhacaya doorashadii baa dhacaysa ha soo galaan mar kale ayaan ku celinayaa dardaaranka oo aan ka codsanaynaa madaxweynaha oo aanu ka codsanaynaa ergada marka doorashadu dhacdo salaanta hambalyada ah madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa inaa isagu halkiisa ku ekaado oo uu joogo inta ay salaamayaan dadkana waxaanu ka codsanaynaa inay u hoggaansamaan awaamiirta ilaalada madaxweynaha oo nabadgelyada ilaalinaysa iyo ragga talada dhakhaatiirta caafimaadku ay bixiyeen oo ay dadku qof qof u salaamaan oo aanay farxadda iyo caatifaddu keenin inay shuruucdii caafimaadka aynu jebinno waxaan mar kale u mahadnaqaynaa ciidanka booliska ee nabadgelyada sugayey intii uu shirku socday oo dhan oo aan dareemayo intii aan arkayey bilayskii oo ilbaxnimo iyo aqoon ay ku korodhay oo aan arkayno dadka sida ay ula dhaqmayaan oo aynaan arag waa markii ugu horrayso dad farahaa leh oo isu yimi iyo askar murmaysa aanan arkin waan ku hambalyaynayaa booliska waayahay bismi illaahi araxmaan iraxiim shirkii halkiisa ka sii wadanaynaa fadhiga ha laasimo socodka la yareeyo waxaynu gelaynaa qodob ka mid ah qodobada xeerka xisbiga oo ah guddoomiyaha iyo ku-xigeennada in shirweyne xisbi lagu doorto tii baynu hadda geli doonnaa inta aynaan gudagelin
guddida qabanqaabada ee hore waxay soo martay oo hawlaheeda ka mid ahaa diyaarinta wixii looga baahdo cidda u tartamaysa guddoomiyaha iyo ku-xigeenada runtii way iska jiraan hadallo ah waa aroos waa cid baa loo tumayaa waxaa markhaati ka tihiin muddo inaynu ku celcelinaynay tartanku inuu furan yahay cid kasta oo ka mida xubnaha xisbiga inuu u furan yahay xataa maaha golaha dhexe musharaxiinta qura u furan yahay musharaxa madaxweyne iyo ku-xigeenka unbaa golaha dhexe qofka golaha dhexe u furan yahay laakiin kani wuxuu furan yahay qof kasta oo xisbiga ka mid ah oo xubinka ah oo ergada shirweynaha ka mid ah waad ogeydeen muddaannu soo wadnay muddaannu u qabannay muddo bila baanu lahayn ha la soo xeraysto wixii macluumaad wixii looga baahan yahay ee shuruuda ah debaajiye lacag baa lagu xidhay waayo wakhtiyo hore waxaa inaga soo maray shirarka hore markay ku soo mareen waa inaad ka faa'iidaysataa wixii ku soo maray sidaa daraaddeed iyadoon cidna laga xidhin cidna loo diidin qof waliba uu u tartami karayay guddoomiyaha xisbiga qof waliba uu u tartamayay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ee koobaad qof waliba uu tartamayay karayay ka labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraadba oo cid ka xidhneed aanay jirin waxay ku soo urureen 7 xubnood ayaa u tartamay ayaa annaga noo keenay wixii aanu uga baahannay ee ahaa shuruudihii guddoomiyaha xisbiga hal shakhsi ayaa noo keenay cid kulama tartamin cid kale oo keentay ma jir xataa cidaanu ka diidnay ma jirin guddoomiye ku-xigeenka koobaad sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka saddexaad sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka afraad baa waxaa soo doontay 3 qof waxa wareeggii labaad u soo gudbay oo shuruudii soo buuxiyey 2 waxaan u mahadnaqaynaa ilaahayna u baryaynaa inuu barakeeyo ilaahayna uga baryaynaa inuu if iyo aakhiraba wanaagga xisbigiisa u galay mid ka badan siiyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan oo tanaasulay sharaf bay u tahay karaamay u tahay abaal xisbigiisu u haya bay u tahay abaal aynu wada hayna bay u tahay taariikhu xisbiga ku leeyay bay ku tahay waa raggii hore xisbiga waa gole deegaan buu ka soo bilaabay ilaa maanta halkaasuu joogaa wuxuu gartay inay cid kale maanta meeshii buuxiso ayuu gartay aad iyo aad baanu marka lagu mahadnaqaynaa dhammaanteenna aanu wada ducayno ilaahay inuu fi aakhiraba barakeeyo isaga iyo ehelkiisa iyo ubadkiisaba sidaa daraaddeed waxaa u tartamay halkaana u soo hadhay hal shakhsi baa u soo hadhay ma jirto cid iminka halkan la odhanaya yaa ka tartamaya dadkii hore shuruudaha soo buuxiyey ee faylashoodu ay bisha furnaayeen oo keliya unbaa halkan laga soo jeedinaya in loo codeeyo waynu gudageli doonnaa guddoomiyaha xisbiga waxaa isu soo sharaxay guddoomiyihii hore ee xisbiga ahna madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa isu soo sharaxay marka waynu bilaabaynaa cidda ogol inuu 5 sannadood ee soo socda guddoomiyaha xisbiga ahaado mudane muuse biixi cabdi gacantaa taagto saxaafaddu kamarada ha ku qabato hadhow baa gunuusiman doonaa waxbaa la sheegi doonaa waa dhiga gacanta waa unanimous weeye 5 sannadood ee soo socda guddoomiyaha xisbiga waxa ah mudane muuse biixi cabdi odhan mayno guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga waxaa isu soo sharaxay oo isna noo keenay shuruudihii soo buuxiyey guddoomiye ku-xigeenkii hore ee koobaad mudane wasiir maxamed kaahin axmed
maxamed kaahin cidda ogol inuu 5 sannadood ee soo socda noqdo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga gacanta taagto waayahay dejiya waa sidoo kale waa unanimous weeye gudoomiye ku-xigeenka labaad waxa u sharaxan oo isna shuruudii soo buuxiyey mudane axmed cabdi xuseen axmed cabdi dheere waayahay fadhiista isaguna waa unanimous weeye gudoomiye ku-xigeenka saddexaad waxa u sharaxan mudane xuseen aadan cadde horena xilkan u hayay gacanta la taago waayahay fadhiiso waa sidoo kale isna gudoomiye ku-xigeenka afraad waxa u sharaxan oo aan cidila sharaxnayn mudane wasiir maxamed xasan sacad saajin gacanta loo taago waaya gacanta dhiga halkaa waxaa inoogu dhammaaday gudoomiye ku-xigeenadii xisbiga laga bilaabo maanta oo ay bishu tahay 6 bisha Oktoobar 2020 xisbiga kulmiye wuxuu yeeshay shantii bisha xisbiga kulmiye wuxuu yeeshay halla fadhiisto wuxuu yeeshay maamul 5 sannadood oo cusub sii wadi doona haddii ilaahay caafimaad ku gaarsiiyo gudoomiyaha ku-xigeenka koobaad labaad saddexaad iyo afraad oo ah ragga halkaa soo safan ee halkaa fadhiya ciddii day cid ka aamustay midina ma jirto waxa aan ugu mahadnaqaynaa ergada halkan fadhida sida karaamada iyo sharafta leh ee ixtiraamka leh ee codkooda oo muujiyeen waxaanu ku daraynaa berrito shirku wuu soconayaa waxaa la ansixin doonaa xubnihii golaha dhexe waxaanu codsanaynaa mar haddii iminka la garanayo golaha dhexe sida deegaamadu ama gobolladu u kala leeyihiin in la soo xulo waa dardaaran in la soo xulo dad xisbiyahana in la soo xulo dadkii xisbiga lagu yaqaanay in la soo xulo dadka aan lagu aqoon boodboodka iyo duulduulka iyo socsocodka iyo maalinba xisbi inay iska iibiyaan waxa kale oo aan ku dardaarmaynaa deegaan waliba uu garanayaa tirada uu leeyahay 20% buu ku dhufanayaa oo hablo dumar ka soo dhigaya dumar lagama qaban doono yaynugula soo lugoyn tiradaa la siiyey ciddii dumarka loo qoondayay aanay ku jirin yaynugula soo habsaamin iminkaba waaye waxaan u dhiibayaa iminkana oo afka gudoomiyaha iyo ku-xigeenada xisbiga ku hadli doona madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waan u geyn doonaa بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxay ila tahay shalay baan u hadlay sidii maxaan ku raahdaa dadkii hore ee aad u hadli jiray oo dheereeyo maanta kelmad mahadnaq umaan u kacay anoo ka wakiila gudoomiye ku-xigeenka koobaad ka labaad ka saddexaad iyo ka afraad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ergadan iyo bulshaweynta kulmiye oo muddo 18 sano aan ku jiray fulintooda iyo hoggaankooda iyo guddoomiyahooda intayada badani oo intaaba nagu dulqaatay naguna aaminay xilka xisbiga maantana xilka culusna saaray aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ergada iyo taageerayaasha kulmiye oo dhan haddii waad mahadsan tihiin waana karaamayseen xil culus baa noo dhiibteen waxaad noo soo raacisaan duco iyo inaad talada iyo taageerada nala ag joogtaan haddaanu qaldannana saxdaanuna qabataan annaguna aan adduun qabsoonno
saasaynu xisbiga ku wadaynaa hawshiisa qodobka labaad kulmiye waa xisbi ballaadhan waxaa kaloo nala qabanaysaan xisbiyadu waa meel arrin lagu gorfaynayo la iskaga hor imanayo ra'yi kala duwan la midaynayo waxaanu jecel lahay cid kasta oo ra'yiga wadata laga bataa inay u dulqaadato oo u hoggaansato kulmiye badankiisu halkuu maray haddii kale kulmiye dhaba ma aha hadduu ka xanaaqo codkabaa layga batay oo uu ka dudo kulmiye dhaba ma aha annaga haddii uu wax naga tirsadana wuxuu leeyahay golihii dhexe mustambeedkiisii taageerayaashii intuba ciddii wax aqoonsata inaynu waanino oynu iswadanno ku cadho ku maqan iminka iyo ku joogaba iyo ku cadhoon doonaba inay xeer noo ahaato xisbiga in la isku wado uu sidoo ahaaduu qaranka ku hoggaamiyo oo ogaadaan taageerayaasha kulmiye inuu qaranku laba goor cod aqlibada ku yidhina hoggaami xisbiyadii kaloo jooga iyagoo qarankana u tudhaya inaynu taa ilaalinaabaa waajib oo la xusuusnaado waan ku dardaarmaya waxaa kaloo doonaya inaan ka caddeeyo sida xeerka qodobka 14aad ee xeerka 14aad iyo xeerka xisbiga dhisayaan inaan halkan ka caddeeyo labadii goor ee lay dooran lahaa aan isu taagi lahaa gudoomiyaha kulmiye labadiiba waa la igu doortay waana isu taagay waxa hubaala haddii alla yidhaahdo doorasho dambe anoo oday ka haddii ilaahay caafimaad nagu gaarsiiyo oon tartan ku jirin inaan xisbiga ka mid noqon doono taasina waa caddahay xisbiga guul baan u rajaynayaa iswadashaan u rajaynayaa qaranku kalsoonidu inay sii kordha mooye inaanay hoos u dhicin baan rajaynayaa intaa xisbiga laga arkaan ayaan rajaynayaa cid kasta oo dhexdeenna wax ka tirsanaysana waxaynu u baahan nahay inaan iswadanno isu waanino kala garowsanno duulduul waynu ka weynaanay xisbi ahaan duulduul iyo fudayd iyo cadho degdega waynu ka weynaanay intaasaynu soo marray xisbigu waa waayo arag taasina waan ku dardaarmayaa aad iyo aad baa mahadsantihin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkiina fadhiya madaxweynuhu wuxuu ma baxayo halkaasaa ku salaamaysaan halkiisaasu joogayaa laakiin bahashaa yaree aarkada ah ee yalowga ah ayaa lagu soo faylayaa dariiqaas sidaa la soo marayaa magiciinna anigoo ku hadlaya min fadlakum ilaalada aqbala aarkadaa yalowga ah baa lagu soo faylayaa dhinacan xaggan hore cidi kama tegi karto xagga hore cidi kama tegi karto war jooj waryaa saxaafadda dib u baxa saxaafadda dib u baxa wasiirada nidaamka ilaaliya wasiiradu iyagu ha dhaafaan meesha wasiiradu ha ka daayaan cidhiidhiga dadka ha ka daayaan haa xildhibaanada caadiga ah baa salaamaya wasiiradu min fadlakum idinku waxaan idinka codsanaynaa gudba wasiiradu ha gudbaan iyagu ha baxaan war waa la joogtaana wasiirada wax salaamaysaana baxa idinku hordo ka baxa hordo oo xil gudan kara runta kama gabado bina uma gadnulo taladu gala galdaloola male 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 galdaloola male 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 runta kama gabado bina uma gadnulo taladu gala galdaloola male 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 galdaloola male 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 isku kaynayo isla garanayo kushu waa kulmiye kulmiye waa kulmiye kushu waa kulmiye kulmiye waa kulmiye isku kaynayo isla garanayo kushu waa kulmiye kulmiye waa kulmiye kushu waa kulmiye kulmiye waa kulmiye
gar alle bulshooy udcurkiyo caddada ma isgarab dhignaa gudun jilicsano gadka daamo lagu soo gabado qaran kuma gale gudoomiye muuse biixi muuse biixi iguma ka marmaya iguma ka marmaya maya maya gar alle bulshooy udcurkiyo caddadu ma gudbooyihiin gudun jilicsano gadka daamo lagu soo gabado qaran kuma gale gudoomiye muuse biixi